this is where I was. 20 sano kadib maalin shaqo oo caadi ah ayaa isu bedeshay murugo kadib qarax gaari xamuul ah oo lala beegsaday dhismahan ku yaal bartamaha Nairobi oo ahaa xarunta safaaradda Mareykanka. Julia Oge gudaha dhismahaasi ayay ku jirtay marka uu qaraxu dhacayay. Xoogga qaraxa ayaa kor u tuuray markay dhulka ku soo dhacdayna burburka dhismayaasha ayaa qariyay. Isbitaalka ayaa la geeyay iyadoo dhiig ka socdo jirkeedan uu dhaawac yahay. waxayna toleen ayaga oo aanan nagu durin daawo xanuun baabi'i ah sababtoo ah waqti looma hayn. waxaan rabay inaan guriga aado waxaana la ii sheegay inay ishayga soo dhacday. waan taabtay markaas ayaan ogaaday inay soo dhacday. waan suuxay kadibna Julia ayaa gashay 3 qalliin oo uu ka mid yahay mid loogu sameeyay Jarmalka si nolosheeda loo badbaadiyo balse waxa ay beeshay isheeda bidix ayadoo saas ay tahay ayay haddana isu aragtaa qof nasiib badan oo ka badbaaday qarax galaaftay nolosha in ka badan 200 oo qof. I feel like I've lived a bonus 20 years. waxaan la uga mahdinayaa inaan soo gaaray 20 sano oo kale oo aanan halkan ku dhiman. marka waxaan eegaa tubada biyaha ee burqanaysa waxayna taasi igalisaa rajo. ku dhawaad 3 ilaa 4 sano ma imaan kareen meel u dhow halkan. baryahanna waan imaadaa. waxaan dareemayaa inaan ka qaalib noqday. I feel that we are conquering. beertan ayaa si joogto ah loogu xasuustaa dadkii ugu horreeyay ee ku waxyeeloobay weerar ay geysteen argagixiso caalami ah kaasoo uu sheegtay ururka Al-Qaacida oo bartilmaameedsanayay hay'ad Mareykan ah. balse inta badan dadka dhibaatada ay soo gaartay waxa ay ahaayeen Kenyaan iyo Tanzaniyaan. magacyadan ayaa ka dhigan dadkii ku dhintay weerarkii ugu horreeyay ee ugu xoogganaa ee ka dhacay dalkan Kenya. dawladda Soomaaliya weerarkaasi kadib waxa ay ku dadaashay badqabka dadkeeda balse 20 sano kadib dagaalka ka dhanka argagixisada ayaa wali u muuqda mid caqabad ah. balse 20 sano kadib xeeladaha argagixisada waxa ay noqdeen wax iska caadi ah. marar badanna Kenyaanka ayaa walaac ka muujiyay dulduleelada ammaanka balse khubarada ammaanka ayaa sheegaya in wax un la qabtay. isbedel ku imaaday waxa weeyaan amniga walaadkii isbedel ku imaaday waxa isbedel ku imaaday dadkii macna verification lagu sameeyay hore jireen waxa imaaday macna waxa weeyaan ururada diimiga yani masaajidaha kulli la kontrolo yani nolosha dhan baa isbedeshay life-kii yani wadanka dhan baa isbedelay maartay warku waxyaabahaas waxay kamid waxyaabahaas soo kordhay ama laga dhaxlay qarixii dhacay 1998